labadii maalmood ee ugu dambeeyay waxa uu sixir barar dhaxal ku yimid qiimaha lagu iibiyo roodtiga iyada oo lagu kordhiyay lacag dhan 500 oo shilinka Soomaaliland waxay saameyn toos ah ku yeelatay dadweynaha kala duwan ee danyarta iyo dadka kale ee isticmaala roodtiga qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in lacag 500 oo shilin lagu kordhiyay roodtiga oo 1500 hadda la siinayo jabka roodida ku darso iga daran waxba iga daran bajabka roodana ku qoreexano 1500 waxayna arago inaan maqal weeyaan waa jabka roodidii waa 1500 saak awal waxa ku shilin waxay haysan kuna shilin sideed kun oo shilin baa laga siiyay subax saakana ku darso taa wax kale ka daran ba waxba ka sii daran la baqadan iyo roodidanba laga ma qabanayaba 10 kun oo shilin ii badal ma badal ayuu kuleeyahay oo maxaan ka dhigaa 13 ka dhig ama 12 ka dhig oo maxaan niyoonaya $1 weeyaan oo soo gadaal ku istaagay shaqo kuma liibu kuleeyahay muuse deediranaada hayo waan ku dooranay hadii aan ku dooranayna sixir bararkii aad tiri waa ridaya wali waxba kama dhicin wax laaliya wax ka dhacay ma jiro xabadii roodhida 3 kun oo shilin bay maraysaa awal loo xal siin jiray 2 kun oo shilin ka dawladda iyo xukuumadda waxa leeyahay dhammaan in laga joojiyo xabadii roodhida ayadoo maraysaa 2 kun oo shilin laakiin imikana maras markii awalkii hore 2 kun maras laakiin aan anigu dadka u naxariisto 2 kun ka siinayo dukaamadu wax siinayaan maxay dukaamadu 2 siinayaan xabada laakiin aanu dadkan u yasay yanoo inta dukaamada laga siiyay laakiin aanu dadka u naxariisto waxaan ka siinayaa 2 kun markii hore laga siinayo qaar baa jira sheegay in 3 kun siinayaan iyaguna way jiraan kuwaas laftigeegu oo dee ku shilin ba ku darsadeenba anagu dadka kale xaq 5 qartan qaar baa ku shilin ku darsadeenba geesta kalena baqarada waaweyn ee keena raashinka kala duwan ayaa iyaguna sheegay in aanay wax qiimo korodhay ku imanin sixirkii ay hore ugu iibin jireen raashinkaasi waxaana in hadda ay mas'uuliyiinta soo saara warshadaha roodhiga ay qaateen go'aankan horta daqiiqda ayaynu ka hadlaynaa waan marayn marka daqiiqda horta wax saay kuma kordhin waa iska sideeduna anagu san ku iibinayna haafka daqiiqiishka daqiiqda $18 baan siinay wana $18 صرف كنا ده كلبه وحي تاجين يوم بتاجين وتعصيده عالم كله ما يسامس بس ما لنا دون بابا قبض كبدوها ما كبدو دقيق ده واستيديو $8 سام نصين الناسك أول نصين mas'uuliyiinta warshadaha soo saara roodhida oo aanu la kulanay ayaa ka gaabsaday in ay wax faahfaahin ka bixiyaan ama ay sababeeyaan waxa ay u kordhiyeen roodhiga intan korukaca ee la kordhiyay roodhida ayaa la fajab ku ah bulshada kala duwan ee danyarta ah ee Soomaaliland Maxamed Xuseen Jaamac Star TV Hargeysa.